بالإجابة طلعنا من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة والجنة حق والموت شهادة والجنة حق والموت شهادة خل اللوام يلوم من ملام خل اللوام يلوم من ملام عودوا يا ناس للإسلام وياه خل اللوام يلوم من ملام خل اللوام يلوم من ملام طلعنا من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة طلعنا من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة والجنة حق والموت شهادة والجنة حق والموت شهادة خل اللوام يلوم من ملام خل اللوام يلوم من ملام عودوا يا ناس للإسلام وياه خل اللوام يلوم من ملام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد. إخوتي في العقيدة، إلا مصابي ملاك الرونتي سينسو مغالله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا قلت المامية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. رب سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وحاو كنت المامية نبي عليه الصلاة والسلام سقوا أمر يا فاقصص القصص dadka taariikhda uga sheekeeba Ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynayaa? ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala lacallahum yatafakkaruun. waxa ay mudan yihiin in ay fakeraan. yacni taariikhdu waa wax lagu cibro qaato. laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab. aayad kale alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramaya waxaa ku jirta wax ku qaadasho, laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah. waxa aan ka warrami doonnaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa. taariikhda bini aadamkaa dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag dibna looguma arag bay tilmaamayaan. sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaaya aan wada noolayn ibnulahir waxaynu ka soo qaadan doonnaa bal erayo uu qorayo ibnulahir fii kaamilih. ibnu athir waa nin taariikhyahan oo muslima. wuxuu noolaa casrigii tataarka, laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dowla alkhawaarzimiya iyo duminteedii. xataa ma soo gaadhin baqdaad iyo shaam iyo wixii ka dambeeyey o dhan. wuxuu geeriyooday baan filayaa 630kii hijriyada. wuxuu leeyahay ibnulahir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo. muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahy. kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayey buu leeyahy inaan qoro. dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku xaadithatu tataar min alxawaadith alcudma waalmasaa'ib alkubraa التي عقمت الدهور عن مثلها عمت الخلائق وخصت المسلمين. وحورنا يا دعضة تتارك كسابساني ودعدو ينكي وقوة ويناء الدنيا دبلغو أركبو يري ومصائب تواوين بي كميتهاي
waa masiibo dunidoo dhan haleeshay buu leeyahy khalaa'iqdoo dhan ku dhacday muslimkana gaar ku sii noqotay waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu u abuuray tanoo kale hore ugama dhicin dibna uga dhici mayso xataa haddii la yidhaahdo buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi laakiin kuwani inba may sii daynin dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan gebagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray mongolia muddo aada u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan wakhti aada u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jina ilaa iyo poland inta ka dhexlay qabsadeen waa jabaan iyo jina laga soo bilaabo oo caalamulislaami lasoo dhex maro oo rushia oo dhan 7 milyan bay leeyihiin kilomitr square oo rushia la dul maro oo ukraine la maro oo poland la maro oo majar la maro hungary oo croatia la maro oo slovenia la maro oo baxrul adriyan talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan taariikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihin dhacdada tan waxa aan rabaa inaan uga warranno inaynu baranno wax ka baranno waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahamno nidaaga rabbaaniga ee ah waa la jabay inaanu muslimku marnaba isku dhiibin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin ha niyad jabina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ha baraq jabina ha niyad jabina oo ha murugoonnina haddaan mu'min tihiin idinkaa koraynaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala dhacdada tan waxaan uga warramaynaa markaasi ma aha nacyiga muslimiinta ama geeridii muslimiinta inaan idiin sheego oo dabeetana dadka qalbiga inay wada madoobaato wax qalbiga madoobaynayaan ka warramayaa laakiin waxaan uga warramayaa in la garto haddii la kufo in la kici karo taa haddii aan ka warramaya laga soo kacay waxa suurtagala wax ka dambeeyo dhanna in laga kici karo taariikhdan marka aan ka warrami doona waa qarnigii 7 ee hijriga qarnigii 7 ee hijriyada bilowgeedii weliba haddaan suurad kooban ka bixinno dhacdadan dad aad u tiro badan baa ka warramay qoraallo aad u tiro badanna waa laga qoray laakiin waxaan isku dayayaa mulakhas ka mid ah kitaabkan uu qoray doctor raghib asarjani 100 bayja ugu horreeya inaan maanta tijaabin karo dunida wakhtiga aan ka warramayno laba xoog baa ka jiray marka hore xoog waa caalamulislaami oo ka bilaabma jina galbeedkiisa ilaa iyo sbain inta ka dhex leh oo muslim haystaan jina galbeedkiisa yurub maxaa la yidhaahdaa eshiyada dhexo oo dhan middle eastka intan la yidhaahdo afrikada waqooyi ilaa iyo laga gaadhayo sbain inta ka dhex leh intaa waxaa haystay dowladdii weynayd ee islaamiga ahayd waa dhul aad u ballaadhan dad aad u tiro badanay deggan yahay awood aad u tiro badan leh
aqoontii bini aadamkee waagaa taallayna hogaaminaya marka xagga cilmiga laga eego. laakiin waxa dhankaa u raacda dhanka siyaasadda ayaa mugdi weyni ka jiray. waxay ahaayeen ummad kala qaybsan oo ishaysata oo aan isbixinaynin ood gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto u yahay. gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto uu yahay. ummaddaas siyaasadda sidan u liidatay ee sidan loo soo hungurayn doonaa wakhti yar ka hor guulo waaweyn bay dunida ka muujisay. dagaaladii muslimka iyo crusadeskii reer galbeedka qoladoodii kiristanka waday u dhaxeeyey waa wakhti yar baa ka soo wareegayba markuu salaaxuddiin guulaystay. salaaxuddiin alayuubi 583 hijriyada bay ahayd markii uu macrakatu xatiin dhigay, ama macrakatul arak markuu isbeeni ay ku soo jebinayaan qoladii kale dawla almuraabita mise muwaaxidiintii. laakiin waxaynu in yar ku arki doonnaa iyadoo aad xaqiiqsan doonto ilaaha qur-aanka ku leh subxaanahu wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas. dunida baa ilaahay leeyay waa maalmo aan dadka isugu warwareejinayo. qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudillu man tashaa. waxaynu arki doonnaa rabbi cidduu doono inuu kor yeelo, cidduu doono sharfo, cidduu doonona dumiyo. wakhtigaasi waxaa dunida ka talinayay caalamka islaamiga ah khilaafo lo odhan jiray alkhilaafa alcabaasiya. khilaafa alcabaasiya 500 iyo dheeraad sanay markaa jirtaa. 132 bay bilaabantay oo dawla lamawiya ay baaba'day. kuwanina caasimadooda waxaa la qabsan doonaa 656 520 sano waxa ayay dawladda tani jirtay. laakiin wakhtiga kan waxay joogtay wakhti boqorku in yar uu ka taliyo ama uu ku dhadhow yahay boqoradda ingiriiska oo kale, iska magacuun uu yahay. laakiin imaarado waddanku uu kala googo'o, imaarad walba boqor ku horkaajo, wuxuu doonana uu ka yeelo, ta ku xigtana ay isku duulaan. madaxduna ay ka fakerto un kursigaa siduu u xejisan lahaa iyo ilmihiisa siduu u dhaxal siin lahaa iyo reerkiisa yare uu ka tirsan yahay si ay dadka kale lacagta uga guri lahaayeen. khilaafa alcabaasiya qaabkaasay u ekayd. dowladdii muslimiinta ee masar iyo shaam waa suuriya, urdun, falastiin, dhulkaas iminka, iyo xijaas oo ah xarameynka iyo inta ku beegan, iyo yaman, iyaguna kamay wadci fiicnayn. salaaxaddiin alayuubi isagaa intan isku qabtay oo dowlad weyn oo islaamiya ka sameeyey. laakiin markuu dhintay dhashiisii iyo tarantii uu ka tegay baa isqabsatay. dabeetana waa la qaybsaday. ninba gobol yar buu gaar u goostay, iyana way kala daadatay. weliba wakhtigaa waxaa kaloo socda alxamla asaliibiya alkhaamisa wixii la odhan jiray, dagaaladii crusadesku wadeen. dagaalkii 5aad baa markaa socda oo dimyaatiyo waa markay qabsadeen masar, qayb ka mida ay soo qabsadeen, oo iyagoo meesha dagaalku uu ka socdo uu dhintayna boqorkii ugu dambeeyey markaa ayuubiyiinta ugu xoog badnaa ee masar markaasi xukumay jiray, almelik alcaadil. galbeedka haddaynu u soo kacno libiya laga bilaabo ilaa andalus, dawla almuwaxidiin oo iyana iska liidata ayaa markaa ka jirtay. gaar ahaan dagaalkii alciqaab lo odhan jiray ee ka dhacay andalus markii lagu jabiyey wixii ka dambeeyey. waxaa jirta dawlad kale oo weyn oo muslimiintu ay lahaayeen oo khawaarzam lo odhan jiray, addawla alkhawaarzamiya. dowladda khawaarzamiyiintu waxay ka talin jirtay duwalkan istaanada la yidhaahdo, turkmanistan